hooyada ayaa wiilka fooda ka dhunkatay balse koronto ayaa qabatay. Wiilku ma uusan baqin sababtoo ah wuxuu lahaa awood saro. Waxaa soo baxday in noole kasta oo uu farta ku taabto uu dib u soo noolanayo. Tusaale ahaan diqsigan dhintay ayuu isla markiiba soo keliyay. Shalay wiilku wuxuu la ciyaarayay eygiisa oo nooca Golden Retriever ah, laakiin nasiib darro gaari ayaa jiiray eyga. Neefsashadiisuna gebi ahaanba way istaagtay. Wiilku aad buu u murugooday. Markii uu gacan u qaaday si uu markii ugu dambeysay u salaamo, koronto ayaa jirkiisa martay. Ilbiriqsigii xigay eygii si mucjiso ah ayuu u soo noolaaday. Markaas ayuu wiilku ogaaday inuu awoodo mucjiso ah leeyahay, laakiin wiilku ma ogeyn in hal daqiiqo kadib uu geed ka soo dhigi doono dabagaale oo dhiman doono bedelkii eyga. Jacaylkii ugu horreeyay ee wiilku waxay ahayd Mari oo ahayd gabadha dariska ah. Inta badan way wada ciyaari jirayeen ilaa ay masiibo dhacday. Hooyadiis ayaa wadno xanuun degdeg ah ku soo booday, isla goobtina way ku geeriyootay. Wiilku si argagax leh ayuu fartiisa ugu taabtay. Indhaheeda ayay kala qaaday iyadoo moodaysay inay suuxday uun, laakiin hal daqiiqo kadib Mari aabaheed ayaa dhulka ku dhacay. Ninkaas dib dambe uma soo kicin. Wiilku wuxuu markaas fahmay qiimaha awoodiisa, nafadalkeed naf kale. Intii aaska lagu jiray isagoo arkaya murugada Mari wuxuu dareemay dembi weyn. Wixii intaas ka dambeeyay wuxuu go'aansaday inuusan qof dambe taaban. Taa bedelkeeda tamartiisii wuxuu geliyay cuntada. Wuxuu noqday khabiir ku takhasusay samaynta macmacaanka, iyadoo miro kasta oo uu taabto ay noqonayeen kuwa cusub. Maalin maalmaha ka mid ah, askari ayaa eryanayay tuuggii ayaa si kama ah uga soo dhacay dabaq dheer. Markii uu dhiman rabay wuxuu ku dhacay wiilka, taasoo keentay inuu isla markiiba soo noolaado. Wiilku wuu eryaday farta ayuuna mar kale ku taabtay, isagoo ninkii dib ugu celiyay gacmaha geerida. Dhacdadaas oo dhan waxaa goobjoog u ahaa askarigii booliska ahaa. Markii uu ogaaday awoodda cajiibka ah ee wiilka, wuxuu ka codsaday inuu gacan ka siiyo baarista dembiyada. Wuxuu geeyey qolka meydadka si ay u ogaadaan cidda dembiga gashay. Wiilku saacadda ayuu fiiriyey. Hal daqiiqo gudaheed wuxuu adeegsaday awooddiisa si uu u kiciyo meydka. Dhibanaha ayaa shaaca ka qaaday in xoghayintiisa ay amartay eeyo qaniinyo badan inay dilaan. Markii xogtaas la helay, wiilku mar kale ayuu taabtay meydkii si uu u dhinto. Sidaasna waxaa lagu soo qabtay dambiilihii dhabta ahaa. Laakiin maalinkii xigay kiis kale ayaa yimid. Markan dhibanuhu wuxuu ahaa jacaylkii hore ee wiilka, Mari. Wiilku si degdeg ah ayuu ugu laabtay magaaladiisii, wuxuuna laaluushay shaqaalihii aaska. Wiilku wuxuu ku adkaystay inuu keligiis sameeyo soo nooleynta, booliiskuna banaanka ayay joogeen. Daboolka naxashka ayuu furay, fartiisana wuxuu si tartiib ah u saaray dhabanka Mari. Mari indhaha ayay kala qaaday. Markii ay wiilka aragtay, wejigeeda waxaa ka muuqday argagax iyo rumaysi la'aan. Wiilku wuxuu weydiiyey cidda dishay, laakiin waxay sheegtay in gadaal laga soo weeraray oo aysan wejiga arkin. Intii ay sheekaysanayeen oo ay xasuusanayeen maalmihii hore, wiilku wuxuu ilaabay waqtigii. Ninkii shaqaalaha ahaa ee banaanka joogay ayaa dhulka ku dhacay oo dhintay, isagoo noqday naftii bedelka u ahayd soo noolaashaha Mari.